ummadda Soomaaliyeed aan rabaa markii mustaqbalka la yiraahdo muxuu Xasan Khayre ku soo kordhiyay shaqada wadankan kaliya hal mid in la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed ayuu soo hor istaagay runtuuna u sheegay hatta haddii ay kalifayso run sheegiddu inaan shaqadayda ku waayo diyaar baan u sidaa daraadeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay Xasan Khayre baarlamaanka sidaan ayuu u codeeyay waxaa ogol u codeeyay 170 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay malaha sidaa daraadeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeel gaarka oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra'iisul wasaare iyo xukuumad wadankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad u mahadsantiin midaan aqbalayno ma ahano wallahi waa dhaarto aqbali mayno haddii waxyaalo kala jiraanna reality-ga ha laga hadlo wallahi aan aqbalayn furan inaa hadashid hadalkaaga la dhegaysto baarlamanka afduubi wasiiraa tahay ogow xildhibaanaa tahay baarlamanka afduubina fariiso hadal waxaad waa sheegi kartaa waa la ansixiyey waxaa la ansixiyey ajandaha waa la ansixiyey fariiso waxaan u qaadanaynaa ishortaag arrinkaas waxaa qaadi doona kow wasiirka amniga waxaa qaadi doona daale ninka la yidhaahdo waxaa qaadi doona xuseen iidow waxaa qaadi doona xildhibaanada meeshaan taagan meeshaan waa baarlaman dadka oo dhan way hadlayaan waxaa idin furo inaa hadashaan fariista xildhibaanada waxaan ka doonaynaa waxaa socda waa processkii doorashooyinkaa socda waxaan u jeedaa nin baa dhaqanta soma alla fariista qaylana waxba ku keeni maysaane fiiri waxaan idin sheegaa fiiri wasiirada ha fariistaan wasiirada sharcigaa idin qabanaya ee rosaabkaa idin qabanaya aadan sharcigaa ku qabanaya ee rosaabkaa ku qabanaya fariiso wasiir fariiso ee rosaabkaa idin qabanaya sharcigaa idin qabanaya oo isoo istaag shaqada golaha wixii ka qadsha idinkaa qaadi doona fariista xildhibaan ku dhow adiga wasiir matiida fariiso laba ruuxoos jecelo laysku hantanahayne liban male adduunyadu laakiin kama filaanay anigu waxba maan samayne sababta adiga lahaayeena sisaaga intaad ka dayso sidaan doonaaye garaho tanina waa yaabe ma taasaad keenteen tanina waa yaabe ma taasaad keenteen cadaalad waa maaqi
dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya oo laga sugayay go'aanka ah in ra'iisul wasaaraha la ceyriyay uu aqbalay in kale ayaa war rasmi ah soo saaray bayaan lagu daabacay filan Soomaaliya ayaa lagu bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa soo gaartay go'aanka ay xildhibaanada golaha shacabka codka kalsoonida kala noqdeen xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre madaxweynuhu waxa uu muhiim u arkaa midnimada hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalk Soomaaliya gaar ahaan marxaladda aan ku jirno balse asagoo oo gudanaya waajibkiisa dastuuriga ah tixgelinayna awoodda dastuuriga ah ee golaha shacabka waxa uu aqbalay go'aanka golaha shacabka kala fogaanshaha xukuumadda iyo hay'adaha sharci dejinta waa mid wiiqaysa horumarka la sameeyay ilaa iyo haatan si taa looga daba qabtana waxaan go'aansanay inaan tixgelino codka golaha shacabka oo ah hay'adda aasaaska u ah qarannimadeena madaxweyne Farmaajo waxa uu si degdeg ah u soo magacaabayaa baa lagu yiri bayaanka ra'iisul wasaare soo dhisa xukuumad dalka ka saarta marxaladda kala guurka ah siina xoojisa adeegyada bulshada ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu uga mahadceliyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre howlgalnimadii uu muujiyay muddadii uu xilka hayay iyo wada shaqayntii wanaagsaneed ee uu la lahaa hay'adaha dowladda federaalk Soomaaliya isagoo u rajeynaya horumar iyo mustaqbal wanaagsan isagoo xafiiskiisa jooga gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayuu ku dhawaaqay in mudanayaasha golaha shacabku ay kalsoonidii kala laabteen xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre gudoomiye Mursal ayaa sheegay in 170 xildhibaan ay ogol ugu codeeyeen halka ay diideen 8 mudane isla markaana aysan jirin xildhibaan ka aamusay sida uu sheegayo afayeenka golaha shacabka guddoonka markuu arkay qodobka 69aad faqradda 2 xarafkiisa ba ee la xisaabtanka iyo korjoogteynta hay'adaha dawladda gaar ahaan dhinaca hubinta dhaqangelinta sharciyada dalka markuu arkay barnaamijka xukuumadda in dalka ay gaarsiin doonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020 oo ku salaysan dimuqraadiyad iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed markuu arkay in xukuumadda ku fashilintay ballanqaadkii ahaa diyaarinta hanaan iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020 dhamaystirka federaaleynta heerarka kala duwan iyo go'aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada hafti u qaadida iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dawlad goboleedyada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada hirgelinta nidaamka axsaabta siyaasadeed si ay uga qeyb qaataan ama qeyb uga noqdaan doorashada dimuqraadiyeysan ee dalka ugana howlgalaan dalka oo dhan markay ku fashilmeen diyaarinta ciidamo amniga suga oo heer federaal iyo heer dawlad goboleed ah awaamirtana ka qaata guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xilliga doorashooyinka lagu jiro sida ku cad qodobka 54aad sharciga doorashooyinka qaranka diyaarinta qoondadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada oo aan lagu soo darin miisaaniyadda 2020 markuu dhageystay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah warbixintii guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ay ku caddeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta qorshaha qabsoomidda doorashooyinka muddada ku xusan qodobka 13aad faqradda 3aad sharciga doorashooyinka qaranka isla markaasna ku dhawaaqeen inaysan ku qaban karin doorashada waqtigii loogu talagalay sidaa daraaddeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay Xasan Khayre baarlamaankana sidaan ayuu u codeeyay waxaa ogol u codeeyay 170 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay malaha sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeel gaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra'iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad u mahadsantiin Thank you.
wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya kana mid ah mudanayaasha golaha shacabka oo warbaahinta kula hadlay xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in guddoonka baarlamaanka uu sharci darro ku dhaqmayo kalsooni kala noqoshada xukuumadana aan loo marin waddo sharci ah. golaha shacabka in saawlo socotaan ummadda Soomaaliyeed waxa leeyahay halkan waxa ku qoran ajendaha maanta ka doodista doorashooyinka ku qoran annaga xana helnay in guddoonka ay ku mashquulsan yihiin inay yiraahdaan xukuumaddu way dhacday taas maanta halka u taagnaan ka doodeynay waxaana guddoomiye aan kula hadalno aan fadhiisano ajendaha noo sheeg doorashooyinka wuxuu ku saabsan yahay waa ajenda aan oo wuxuu soo qoro falska ah oo aan waxba ka jirin markan ajendihii aan dhahnagala hadal guddoomiyuhu naga dhaga adeegay wuxuu alla qadar waxaana sharciga wadanka ama adduunyada aan ka dhicin halkan uu ka sameeyo oo kamid ah iyadoo hal qof ka doodin xukuumadda motion laga keenin oo wax cadeen lagu haynin in xukuumaddu waa dhacday yiraahdo waxa ugu fiicnayd guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa inay gurigooda iska jiiftaan ee waa dhacday uu yiraahdo marka hadda waxaa marqaati ka yahay kaamirooyinka ay joogeen ee live la galaya xukuumaddu waa dhacday la dhahayo aan motion laga keenin oo dastuurka waafaqsaneen aan laga doodin oo xukuumadda marka la eedeeyay inay isdifaacin inuu guddoomiyaha maanta waa aragtay aayadaha quraanka marka lagu furo hadalka ugu ku xigay waxay inuu yiraahdo xukuumaddu waa dhacday marka taas waxaan ogsoonaa in qaran dumis uu yahay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka marka ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahay inay u jeedaan waxaan annaga mar walba xukuumad ahaan aan leenahay aan sheegnay wasaarahana uu sheegay in doorashooyinka waqtigeeda ay ku dhacaan sababtoo anaga wasiir amni ahaan xil ay iga saaran dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan in doorashooyinka waqtigooda lagu qabto in doorashooyinka aan waqtiga loogu talagalay 8 February madaxweynaha la doorto waa dhici kartaa farsamo iyo wixii la doono farsamo waa la aadi karaa wixii technical ah delete technical du yimaad waag Sheekh Shariif oo yimaad madaxweynaha hor Sheekh Shariif xasan Sheekh labada bixlabaan ahay waqtiga dib ugu dhacdo waxba laga ma qabo laakiin laba sano extension la qaadaha marka waxaan ka dhiidinay waxaan u shaqeynaa ummadda Soomaaliyeed aan nahay annaga wasiirne uma jirnin laakiin waxaan rabnaa wixii xaq ummadana helaan dalkan waa inuu doorasho aadaa doorasho waa taasaan laga shaqeynaa waqtiga loogu talagalay doorasho aad doon haduu Ilaahay yiraahdo qofkii ku taamay inuu 2 sano ku darsado sida maanta xukuumadda ay ka dhiman tahay 3 bil 4 bil gudaheeda xukuumadda la rido xukuumadda la soo dhisaa taas suurtay midnimo ku fikiraya waxaan leeyahay iimaanka Ilaahay ku gulsho ma dhacayso mana dhici doonto waana maastiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guddoonka baarlamaanka wada kisteeshinka golaha shacabka wado guddoonkan hormuudka ah taasna dhici mayso dalkan doorasho aada waqtiga loogu talagalay doorasho ku aada doorashadan si wada ogol ah dowlad goboleedyada xubinta ka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waxa laga rabaa dalkan doorasho inuu aado marka guddoonku waxaan leeyahay maanta nasiib daro way wax taariikhda baalmadow ka gala way in ayadoona hal xildhibaan hadlin ayadoona ajendaha uu ku jirin xukuumadda xilka noqoshada ayadoo intaas lahayn inuu yiraahdo guddoonka xukuumadda cod u qaado waa wax la yaabo xildhibaano kale ay gadameyn doonto waana mahadsantihiin laakiin xildhibaan saacad wasiir maxaad u doodi weyseen oo aragtidiina waxaad qabtaan maadaama uu guddoonku ogolaa maxaad u istaagteen golaha hortooda waxaan ogaa dooda haddii la furnaan saana ku dhimaaleed halkan waxaa ku dhigan doorashooyinka xukuumadda dhacda kuma dhigin intaanu rabin marka waxaan annaga u doodeynay aan doodana ahayd inuu warkiisa toos u yiraahdo oo alla mahadiis waxaan ka filayno toos u yiri marka intaan ahayd marka annaga inaan qaldan ha ogaadaan sharciga hogaansanahay waxaan u doodeynay intaas ahayd tiinu yimid waa nasiib daro waxaan leeyahay waa ummadda Soomaaliyeed inay dib u noqoto ma rabno in hore loo socdo la rabaa insha Allah biidnillah kariim waxaan ka shaqeynaa dalkan doorashadiisa oo aad lahayd si ummadda Soomaaliyeed kalsoonata 4 sano kastana waxa ka dhaco dalkan 2000 ilaa hadda 4 sano kasta doorasho ka dhacdo doorasho dhacaysa biidnillah kariim marka xukuumaddu extension ma ogolo xukuumadda horena wasaaraha u shahadana ku celcelinaa xukuumadda ma ogolo xukuumadda xasan cali khayra ma ogolo extension doorasho dhacaysa doorasho ku dhacayso madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka iyo baarlamaanka si kala doorasho hal qof iyo hal cod ma dhici karto
guddiga doorashooyinka halkan ee timid xalimi yaray waxayna tiri guddoomiyaha doorasho waxaan u baahnahay waqtigana ma caddo 13 bil sheegatay iyo 9 bil wax cad male qalabka diyaar ma ahan marka taas mar inuu gudaha sii galo waa mahadsantihiin waxaa ku furan inaa hadashid hadalkaaga la dhegaysto baarlamanka afduubin wasiiraa tahay ogow xildhibaanaa tahay baarlamanka afduubina fariiso hadal waxaa aragtid waa sheegi kartaa waa la ansixiyey waxaa la ansixiyey ajandaha waa la ansixiyey fariiso waxaan u qaadanaynaa ishortaag shaqada golaha shacabka ee baarlamanka oo 5 qof ishor istaagtay waxaan idin sheegaa natiijada halkan ka barataa arrinkaas waxaa qaadi doona kow wasiirka amniga waxaa qaadi doona daale ninka la yidhaahdo waxaa qaadi doona xuseen iidow waxaa qaadi doona xildhibaanada meeshaan taagan meeshaan waa baarlaman dadka oo dhan way hadlayaan waxaa idin furo inaa hadashaan fariista xildhibaanada waxaan ka doodaynaa waxaa socda waa processkii doorashooyinkaa socda waxaan u jeedaa nin baa daqanta soma alla fariisto qaylana waxba ku keeni maysaane feri waxaan idin sheegaa feri wasiirada ha fariistaan wasiirada sharciga idin qabanaya ee rosaabka idin qabanaya aadan sharciga qabanaya ee rosaabka ku qabanaya fariiso wasiir fariiso ee rosaabka idin qabanaya sharciga idin qabanaya oo isoo istaag shaqada golaha wixii ka dhasha idinkaa qaadi doona fariista xildhibaan ku dhow adiga wasiir natiida fariiso midaan aqbalayno ma ahano wallaahi waa dhaarto aqbali mayno haddii waxyaalo kale jiraanna realitiga ha laga hadlo wallahi aanan aqbalayn odayaasha iyo waxgaradka ugaasyada nabadoonnada salaadiinta suldaamada dhammaantood waxaan aada uga xunnahay oo wax lala yaabay ah awaluhu wixii ka dhacay maanta aqalka baarlamaanka oo aanan dastuur ahaan marka la yidhaahna aanan sax u arag waxay aan ka digaynana aada u moodo in meesha laga hurinayo taasoo ah khalad aada u weyn oo dalka iyo dadkaba in burbur lagu horseedo ay meesha ka muuqato taasna midaan aqbalayno ama aqbali doono maahan aayadaha qur-aanka markii la furay oo laga furay meesha in guddoonkii baarlamaanka inta istaago ou yidhaahdo xukuumaddii waa dhacda dowladdiina waa la riday haddii saasu dowladdu u fududahay adiguna ka lugee guddoomiya meesha haddii waxba kuuma yaalaan dalka fawdaad gelisay colaadaad gelisay dhibaataad gelisay sharcigana uma aragno waxaan leenahay oon ka digaynaa in dalka iyo dadkaba xasiloonidooda lagu hayo inaan dastuurka la baalmarin constitution uu leeyahay dalku yaan la baalmarin inaan la baalmarin baan annagu aan leenahay oon ku adkaynaynaa weliba waxaan leenahay waxaa u dhiman dowladda waa 3 bilood in ra-iisul wasaarihii qaranka la yidhaahdo iyo dowladdiisi waa dhacday goormaa lasoo dhisaa dowlad waa laga qaadi karaa ra-iisul wasaaraha xilka waa laga qaadi karaa laakiin waa goorma sharci ma tahay dastuuri ma tahay ma sharcigu gacantooda kuma jire dalka iskale waa wada naqaanaa dastuurkana waa wada naqaanaa sidaas darteed waxaan leenahay fawdada
iyo maaragtay burburka iyo in xasilooni xumo dalka loo horseedo aan aqbalayno ma ahano wallaahi waa dhaarto aqbali mayno haddii waxyaalo kale jiraanna realitiga ha laga hadlo wallaahanan aqbali mayno dalkana male 2 3 4 mayle soomaaliya iskala dalka aqbali mayno waa in si sharciya lagu wada shaqeeyo ama lagu kala tago dalkan dawladu kama jirto la yiraahdo oo la wada baxa meesha laakiin aqbali mayno waxaan dastuurka ku ool oon constitutionka ku ool oon dalka iyo dadka aan dan u hayn war intaas ma qaadanay barnaamijkan hadda laga dhawaajiyay ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka soo yeeray maanta runtii wax loo fadhiyay maahan dowladdan hadda dhisan ee Soomaaliya waxaa lagu ammaanayay dowladdii u khilaafka yareeday ahayd dowladihii ka horreeyay ra'iisul wasaareyaal badan isbedeli jiray iyo madaxweynuhu kasta ra'iisul wasaare hadda magacaabi jiray dowladdan waqtigeedii waa dhammaaday xilli la isbedelaba maaba iyadoo dhammaadaba hadda xilligii ka dhammaaday baarlamaanku waa ka sii horeeyaan qaybta fulinta 3 bilood wax ka yara oo horay xilli la iskhilaafo ama xilli la yiraahdo waxba la ridayaa maba la joogaba goorteedba maahan waxaan leenahay qof waliba uu diyaar garoobo sidii uu u soo noqon lahaay oo loo dooran lahaay oo wax u dooran lahaay ma jirto wax maaragtay maanta ku habboonna ma ahan inay dowladdu hadda tiraahdo waxaan ridaynaa ra'iisul wasaare xilli ra'iisul wasaare kale la magacaabeen oo lamaba joogo xilligii baaba dhammaadayba waxaan leenahay markaas sideeda loo daa baarlamaanku arrintaa maanta ka soo yeertay sax maaha runtii mana ku faraxsanin dowladdan waqtigeeda ha dhammaysato oo ha u diyaar garoodo doorashada soo socota waxaan is leeyahay waxaa meelaha laga yeerayaa cod iyo qof iyo cod wax badana lagu celceliyey oon ka maqalnaa maaragtay baraha bulshada iyo idaacadaha waxaan is leenahay Soomaaliya suuragal ma ahan xilligan haddii aad sidaad doon lagu weydana sidaad ka badweyda la yeelaa baa la yiri doorashadii dadbaneed ee la soo maray haddii wax laga bedelayo iyo haddii iyadii lagu soconayaba inayan horeyn baa muuqata waqti korosina ma soconayo haddii la isgariifo ummadda la isku garan waayo oo nin waliba dan gaara ilaashado gooni wax u doono gobonnimadii Soomaaliyeed waxay ku dhici goroftii caabeede gudnimada wayaan laga baxayn qoor iyo ayaane dadweynaha wixii laga gadi lahaa tala ku soo gooyo raggii asaas lahaa maanta waa kuwa leh baarlamaankii baa ishaystay oo dharbaxad iyo kuraasi la isla dhacaya markaan saa u dirayena saasay ahayd waxa weeye waxaan u sheegayaa baarlamaanka Soomaaliyeed Soomaalidu waxay ku maamaadaa umusha wixii u dara ilmaha u dara wixii shacabka u dara ma idin kala idin dara joojiya fawdada maanta maalin khilaaf maaha madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo taariikh mid hal mid taariikh ku lahayd maantana cimri tagad ceeb ku jisanta anu ilaahay baa ka xabsanaya nina ka xabsan maayo madaxweynaha kaliya aan weligii ra'iisul wasaarihiisa iskhilaafin baa 3 bilood ayay ku hartay maanta la leeyahay waa la iskhilaaf waa maxay waa cimri tagad ceeb lagu jisano Soomaaliya hamidoodu Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya nabad Allah ka dhigo waxay ahaaday hididiilo muuqatay ummadda Soomaaliyeedna rajadeedu soo celisay waxaan rabnaa halkii in laga sii wado doorashada soo socoto la sugaa dowladda Soomaaliya madaxdeeda iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka labadaba waxaan ka codsanaynaa doorashadu inaysan waqtigeeda dhaafin si wadanku oo xasiloonidiisu ay u jirto u sii jirto qalalaasa siyaasadeed aanu u dhicin iska horimaad looga nabad galo sidaasaan maaragtay ku talihaynaa annagoo ah dhaqankii Soomaaliyeed odayaashii samadoonadii wanaaga kugu jeclaay saasaan ku taleenaynaa waxaan ka digaynaa wax kasta oo u eg ama ah dheeraysi saad ogtihiin ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ay ka soo kabaladahay oo ku daba dheeraatay waxay ka raacday kursi la jeclaado oo la laxwiyo oo laga degin dhibaatada Soomaaliya aaskeedu waa midaas wax kasto ayada u eg marka anagu jeclaysamayno waana ka digayna hadana odaasha Soomaaliyeed
arrintaasna waxaan u jeedinaynaa baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo xukuumadda iyo dhammaan federaalka inaan lagu hamin ama la isku dayin waxa la yidhaha dheeraysi. taasna waa ka digaynaa ayadana waxayna keeni kartaa mushkilad ummaddan dib u celisa. soona dhaweymayna annagu haddaana odayaasha xamar soomaaliyeed nabadan ku naaloonay 2 goor halkan dowlad lagu dhisay oo si sharaf leh qiimo leh isaga bedeshay tiyo kalan u fadhinaa annagu hiddiilo fiican baa socotay laakiin maanta waxaa lagu yimid wax yar oo waxaa lagu yimid niyad jab aad u weyn baa meeshan ka qaadnaada. runtaan idiin sheegaynaa baarlamaankow dalkii oo ciidamada Kenya ay dhinac ka haystaan ood horey uga bixin weyseen ood muxuu ahaa ummad Soomaaliya ay xasuuqayaan muxuu ahaa ganacsigeeni ay xasuuqayaan ateerooyinkii hormuud ay sidoo kale u galeen meel walba ay joogaan inaad maanta ayadoo 3 bilood dawladda ka hartay inaad fadqalalo aad bilowdaan oo ra'iisul wasaaraha ridnay Soomaaliya uma cunanto ayadaas barnaamijka isaga ah gudoomiye baarlamaanka waan ku ixtiraamaynaa. Soomaali baa tahay xuquuq baan ku leenahay arrintaa ayada waxaan leenahay waa meel ka dhac weyn Soomaaliya lagu sameeyay xuduudaheedii lagu sameeyay war xuduudihii Soomaaliya buulaha Soomaaliya war hoosigooyo Soomaaliya iyo muxuu ahaa badhaadhe iyo kulbiyo waxa shacabka lagu sameeyo war miyaadan horaan uga hadlay arrintaa ayada ah. hadda maanta waxaad keenteen ba inaad muxuu ahaa shay aad noo gumaysaan gumaysi baad na geliseen ku talagala baarlamaanka Soomaaliya gumaysi baad geliseen ma aadan xoreynin awal horeba maxaad ku timaadeen muxuu ahaa xoog iyo xoolaad ku timaadeen muxuu ahaa dallay baad ahaydeen haddana waxaan leenahay nin iyo cod ayaa la dooranayaa ninkii shacabka Soomaaliya ay soo doortaan oo baana xildhibaan noo noqonaya nana hogaaminaya. runtii waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed fawdo wax macnaana kuma lahan sharciga iyo nidaamka iyo systemka dawliga ayaana lagu kala adag yahay lama kala xoog badna. waxaan soo jeedinaynaa in dalkan arrimihiisa iyo masiirkiisa iyo wadatashigiisa iyo mas'uuliyadiisa iyo dawladnimadiisa isla ogol in lagu dhameeyo jidka in lagu socdo wixii intaas ka soo haray Soomaali ayay runtii dib u celinayaan waana ka xunahay waxaana soo gaaraya oo aan maqlayna maantay oo runtii aanan ku faraxsanayn oo ah ma garanaysaa qayladhaanta baarlamaanka ka dhex jirta ma soo dhaweynayno. waxaan soo dhaweynaynaa wada ogol wada tashi isoo ogolaasho. kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. qodobada aan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo war lama filaan ah ka soo saaray go'aankii golaha shacabku ay ka oriyeen xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre. xukuumadda Khayre oo ka soo horjeesatay go'aanka lagu ceyriyay ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada. gudoomiye Mursal oo ku eedeeyay ra'iisul wasaare Khayre iyo xukuumaddiisa fasil siyaasadeed. qodobada kale aan idiin hayno waxa kamid ah sidee ayay siyaasiyiinta iyo dadka daneeya arrimaha Soomaaliya uga falceliyeen go'aanka baarlamaanka federaalka ay ku ceyriyeen ra'iisul wasaare Khayre. madaxda maamul goboleedyada dalka oo dharbaaxo lama filaan ah uu ku noqday go'aanka baarlamaanka. guuxa dadka loo wado inay bedelaan ra'iisul wasaare Khayre oo durbaba bilaabatay xiisada baarlamaanka iyo xukuumadda u dhaxaysa. maanta gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu si rasmi ah u shaaciyay in kulankii maanta ee baarlamaanka kalsoonidii lagala noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisa. Mursal oo hadlayay kadib buuq hareeyay kulanka maanta ee golaha shacabka ayaa sheegay in xukuumadda ay kalsoonida kala noqdeen 170 mudane ayna diideen 8 xildhibaan oo kaliya isagoo tilmaamay inaysan jirin cid ka aamustay kadib codeyn la geliyay. gudoomiyaha ayaa ugu baaqay madaxweynaha inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub si loo dardalgeliyo howlaha la sugayo ee xukuumadda federaalka Soomaaliya horyaala. sidoo kale gudoomiye Mursal ayaa ku eedeeyay xukuumadda inay ku fashilantay doorashooyinka ee dhici lahaa dalka 2020-2021 maqaamka Muqdisho iyo dhamaystirka dastuurka.
sida ay horey u baahisay shabakadeena waxaa mooshinka sida degdega ah lagu rido xukuumadda gadaal ka riixayay guddoonka baarlamanka iyo madaxtooyada si kastaba ha ahaatee lama oga sida ay sharci ku noqon doonto kalsooni kala noqoshada degdega ah ee lagu sameeyey ra-iisul wasaaraha xilli lagu guda jiro marxalad kala guur ah intii baarlamanka lagu guda jiro buuq ayaa hareeyey xarunta baarlamanka xildhibaanada wasiirada ah ee xubnaha ah ee taageersan golaha xukuumadda ra-iisul wasaare kheyre ayaana mooshinka buuq ku furay xubnaha fowdada bilaabe ayaa waxaa ka mid ah wasiirka amniga maxamed abuukar slow ducaale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta aadam isaaq xildhibaan mustaf dhuxle oo ra-iisul wasaaraha hayb hoose ay yihiin xildhibaan xuseen iidow oo ra-iisul wasaaraha isku hayb yihiin wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka cismaan daalo sida kulanka lagu horsheegay islamarkaana kulanka laga soo duubay ay muujinayeen gudoomiyaha oo uu markaasi dhinac fadhiyo ku-xigeenkiisa koowaad cabdiweli sheekh ibraahim muudey ayaa waxa ay markaasi ay isku dayeen in buuqa ay xakameeyaan hase ahaatee buuq wuxuu noqday mid aada u xoogan dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo laga sugayay go-aanka ah in ra-iisul wasaaraha la ceyriyey uu aqbalay in kale ayaa war rasmiga soo saaray bayaan lagu daabacay filla soomaaliya ayaa lagu bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaa soo gaartay go-aanka ay xildhibaanada golaha shacabka codka kalsoonida kala noqdeen xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre madaxweynuhu waxa uu muhiim u arkaa midnimada hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan marxaladda aan ku jirno balse isagoo oo gudanaya waajibkiisa dastuuriga ah tixgelinayana awoodda dastuuriga ah ee golaha shacabka waxa uu aqbalay go-aanka golaha shacabka kala fogaanshaha xukuumadda iyo hay-adaha sharci dejinta waa mid wiiqaysa horumarka la sameeyey ilaa iyo haatan si taa looga daba qabtana waxaan go-aansanay inaan tixgelino codka golaha shacabka oo ah hay-adda aasaaska u ah qarannimadeenna madaxweyne farmaajo waxa uu si degdeg ah usoo magacaabayaabaa lagu yidhi bayaanka ra-iisul wasaare soo dhisa xukuumad dalka ka saarta marxalada kala guurka ah siina xoojisa adeegyada bulshada ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu uga mahad celiyey ra-iisul wasaare xasan cali kheyre howlkalnimadii uu muujiyey muddadii uu xilka hayay iyo wada shaqayntii wanaagsaneyd ee uu la lahaa hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya isagoo u rajeynaya horumar iyo mustaqbal wanaagsan bayaankaas wuxuu ka soo baxay villa soomaaliya aad ayaana loo sugayey dhinaca kale wasiirka amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa si cad uga soo horjeestay go-aankii ay golaha shacabka kalsoonida kala noqdeen xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ee uu wasiirka ka yahay wasiirka oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta golaha shacabka mar uu soo dhammaaday kulankii baarlamaanka ayaa sheegay in guddoonka golaha ay shurqooleen xildhibaanada maadaama ajandaha lasoo ogeysiin islamarkaana ajandaha keliya lasoo bandhigo oo ahaa arrimaha doorashooyinka isla waxauu sidoo kale sheegay in ay markaasi xalayto heleen in guddoonka golaha shacabka uu ku mashquulsan yahay rididda xukuumadda taasina ay ahayd mid ay aada ugu dheganuglaayeen oo ay aada u filayeen wuxuu alle qadaray waa wax aan sharciga ahayn in ay halkan ka sameeyaan guddoonkii waxaan caddaynayaa iyada oo aan hal qof ka doodin xukuumaddii mooshin laga keenin wax cadna aan lagu haynin in la yidhaahdo xukuumaddii way dhacday ayuu yidhi wasiir slow waxa aad u fiicnayd buu yidhi guddoomiyaha inuu ku-xigeenkiisa ay markaasi ka fiirsadaan go-aanka ay qaateen xukuumaddan ay ku rideen si kastaba guddoomiyaha baarlamanka ayaa waxa uu sheegay in 170 xildhibaan ay kalsoonidii kala laabteen ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa hadda ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay uu joogay warar ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha uu galabta kusoo laaban doono magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya laakiin haddiiba madaxweynuhu uu aqbalay go-aanka baarlamanka waxay u muuqataa in ra-iisul wasaaraha uu markaasi u tanaasuli doonto danta shacabka iyo sida u wanaagsan shacabka si hore loogu sii socdo go-aanka ay guddoomiyaha baarlamanka iyo ku-xigeenkiisa ay ka shaqeeyeen ayaa waxaa sidoo kale loo arkaa in uu wiiqayo shirkii dhuusamareeb iyo go-aanadii shirkii dhuusamareeb ka soo baxay dhinaca kale guddoomiye mursal oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta villa hargeysa ee baarlamanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda ay ku fashilantay adeegyadii loo dirtay waxa uu sheegay in dhammaystirka dastuurka ay ku fashilmeen doorasho qof iyo cod inay dalka geliyaan ay ku fashilmeen amniga dalkan ay ku fashilmeen daadejinta nidaamka federaalkan ay ku fashilmeen
fashilmeen waxa uu sheegay in sidaa darteed ay keentay in xukuumadda ay kalsoonida kala noqoto mursal iyo xildhibaano badan oo baarlamaanka ka tirsan ayaa waxa ay hore uga soo horjeedeen in shirka dhuusamareeb lagu go'aamiyo in doorasho dadban la aado taas ay u arkeen mid iyaga awoodeedii lagu faramuruqsanayo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa go'aanadii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb laba kadib waxa uu sheegay in uu la tashi ugu laaban doono guddoonka baarlamaanka waxaana dad siyaasiyiin ay aad ugu doodayeen in arrintan ahayd arrin ay guddoonka baarlamaanka iyo villa Soomaaliya ay ka wada shaqeynayeen si wadanku uu muddo dib ugu dhaco howlihiisa maadaama ra'iisul wasaare la'aantiis aan howlo badan oo dalku u baahan yahay la qaban karin si kastaba xaaladda siyaasadeed dalka ayaa u muuqatay inay galayso meel xasaasi ah laakiin waxaan ummadda Soomaaliyeed u rajaynaynaa maalmo wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan waxaan madaxweynaha ka filaynaa in uu magacaabo ra'iisul wasaare danta ummadda Soomaaliyeed ka shaqeeya isla markaana marxaladan adag dalka ka samata bixiya hadaba daawadayaal sidee ayay siyaasiyiinta iyo dadka daneeya arrimaha Soomaaliya uga falceliyeen go'aanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya inkastoo siyaasiyiin badan aysan wali hadlin oo ay arrinta ka fiirsanayaan haddana waxa ilaa ya haatan hadlay dhowr siyaasi oo arrimahan si adag uga hadlay madaxweynihii hore ee Hirshabelle Ali Cabdullaahi Cosoble ayaa waxa uu noqday qofkii ugu horeeyay xilka qaadida ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ka soo hadla Ali Cosoble ayaa waxa uu qoraalkiisa ku yiri dulmigii la igu sameeyay intii ka shaqeysay mid kamid ah mid ayay daaqada uga baxayaan ilaahaba mahadle oo ula jeedo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo isaga malaha markii uu Hirshabelle joogay rididiisa ka shaqeeyay sidoo hadalku dhigay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qoraallo dhowr daba joog soo qoriyay sidoo kale hore uga hadlay in ra'iisul wasaaraha la ridirabo ayaa waxa uu soo qoray waxaan sugaynaa waa madaxweyne Farmaajo oo fawdada taageera waxaan maanta la kala baranayaa cidda calowga qaska iyo qalaasaha ka dhax kaluumaysanaysa cidda danta ummadda Soomaaliyeed ee maslaxada dalka xeerinaysa ayaa la kala ogaanaya sidaas ayuu soo qoray Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaanu qoraalkiisu yimid ka hor inta aanu madaxweynaha bayaankiisa ku aadan mowqifka uu ka qaatay go'aanka baarlamaanka aanu soo saarin dhinaca kale go'aanka ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu dharbaaxo ku noqonaya lama filaana madaxda dawlad goboleedyada kuwaas oo doonayay in nooc doorasho iyagu ay rabaan dalka ay ka dhacdo isla markaana dhuusamareeb 15 Agoosto la isugu soo laabto xilli madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Galmudug ay ku sugayeen cadaado ayaa arrintan soo baxaysa waxaana la sheegayaa in dhabar jab weyn ku noqonayso shirarkii dawlad goboleedyada ay wadeen doorasho dadban dalka lagu galin lahaa arrintaas oo markaasi ka daraysa xaaladda si kastaba haatee dad siyaasiyiin ayaa sheegay in madaxda dawlad goboleedyada ay aad uga xumaadeen go'aanka la gaaray waxaana ay ku tilmaameen sida dadka agdhow ay sheegayaan in madaxweynuhu ka baxay ballanqaadkii iyo go'aamadii dhuusamareeb lagu soo gaaray sida ay hadalka u dhigeen haddaba guuxa dadka ayaa bilowday oo ra'iisul wasaaraha cidda la hadalhayo in Xasan Cali Khayre ay bedeli karto dad badan ayaa miiska saaran laakiin barnaamijyadeena dambe ayaan ku falaqeynaynaa waxa laga yaabaa leeyahay dad ku dhow madaxweyne Farmaajo in la soo magacaabo oo qaarkood villa Soomaaliya ka shaqeeyaan ilaa iyo haatan 10 xubnood oo la saadaalinayo ayaan kugu soo gudbin doonaa daawadayaal barnaamijyadeena dambe ee soo aadan oo aan ku falaqeyn doono cidda ka soo bixi karta jagadan iyo waxyaabaha horyaala laakiin maxaa xilligan in la bedelo ra'iisul wasaaraha ay muhiimad ugu yeelatay baarlamaanka waxay muhiimad ugu yeelatay baarlamaanka oo muddo kordhin raadinayay ayaa helaya fursad kale oo wadanku uu ku galo extension ama muddo 1 sano ilaa 2 sano oo dheeraad ah oo madaxweynaha lagu daro iyo golaha wasiirada la soo dhisi doono taas oo keeni karta in baarlamaanku ay ka faa'iideystaan waxay sidoo kale baarlamaanku ka shaqeyn karaan in ra'iisul wasaaraha ay ku qasbaan in doorasho qof iyo cod uu dalka geliyo taas oo baarlamaanka iyo villa Soomaaliya aad ay u danaynayaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha waqtiga dheer burburka kadib runtii waxa uu ahaa dadkii ugu shaqada badnaa ama ra'iisul wasaare ugu shaqada badnaa burburkii kadib ee dalkan soo maray taas oo dad badan ay aad ula dhacsanaayeen howlihiisa dabcan waxa dad badan ay sheegayaan in Xasan Cali Khayre uu ku jiro damaca in madaxweynuhu u tartamo taasna ay villa Soomaaliya iyo tiimka jooga ay dhibsadeen inkastoo wararkaas aan xaqiijin karin si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaarihii hore waxaan u rajaynaynaa waqti wanaagsan iyo in hogaanka dalka uu meel ka qabto maadaama uu yahay hogaamiye la soo tijaabiyay oo wax badan ummadda Soomaaliyeed u naxaya una turaya waxaan rajaynaynaa in uusan qalaasa dalka u horseedin ee uu aqbalo go'aanka baarlamaanka iyo midka madaxweynaha laba ruux oo jecelo laysku hantaanahayne diban male adduunyadu laakiin kama filaanay anigu waxba maan samayne sababta adiga lahaayeena saagan intaad ka bayso sidaan doonaya garo
tanina waa yaabe ma taasaad keenteen oho tanina waa yaabe ma taasaad keenteen cadaalad waa maaqi